weligaa daawade ma maqashay sheekada ku saabsan wadaaddo meel lagu ga'doomiyey qarniyo dhowr ah oo dal loo aqoonsaday? Ma maqashay dalka loo yaqaano Vatican? Waa hubaa inay maskaxdaada ku soo dhacayso waa halka looga arrimiyo diinta Masiixiga, gaar ahaan madhabta Katolik. Kugumana cusub baan filayaa inay ku dhex taal caasimada waddanka Talyaaniga Rome, laakiin ma isweydiisay sidee ayay qalcadan yar ee ku jiraan wadaaddo tiro yar oo diinta Masiixiga ah ay ku noqdeen inay dunidu ula macaamisho sidii dal gaar ah oo leh calan gaara? Waa goob ka yar hal suuq oo laga dukaamaysto oo ku yaal Dubai, taasi oo ay ka dab qaataan dad ka badan 1 bilyan iyo dheeraad. Haddaba sidee ayay dal ku noqotay iyadoo ku dhex taal caasimada dal ka mid ah wadamada dunida saamaynta dhaqaale iyo midka siyaasadeedba sidan uma yaraan jirin qalcadani ay wadaadada Masiixiga ah ku jiraan sanadii 756 ilaa 1870. Waxay magaalo madax u ahaan jirtay gobol la yiraahdo Babel State oo maamulo madaxa diinta Masiixiga ee hadba jooga. Laakiin bilowgii qarnigii 19aad ayaa duulaan ku qaaday boqortooyadii ka jirtay waddanka Talyaaniga, taasi oo ku mideynaysa gobolada dalkaasi isla markaana ay caasimada boqortooyada loogu aqoonsanayo magaalada Rome. Xilligaasi gobolkan ay wadaadadiimeedyadu haystaan waa ay diideen inay hoos tagaan boqortooyada. Awoodii gobolkan dhan ku baahsanaydna waxa ay ku soo ururtay qalcadan yar ee inoo muuqata. Wadaadiimeedkii xilligaasi horkacayay Masiixiyiinta qalcadani hoosta ka xidhay oo noqonaya abid midkii ugu muddada dheeraa ee soo hogaamiya goobtani looga arrimi Katoliyiinta, kaasi oo lagu magacaabi jiray Pope Pius kii 9aad isla markaana xukumayay 32 ayaa gaashaanka u daruuray duulaankii boqortooyada. Waxaanu xilligaasi isu aqoonsaday isaga iyo kooxdiimeedii uu horkacayay maxaabiis ku xidhan xaruntani Vatican. Ciidamadii boqortooyada Talyaaniga ee duulaanka wadayna kumay dhiiran inay dhegta soo qabtaan hogaamiye diimeedkan falaagoobay. Waa ay xurmeynayeen oo waxa ay ka baqayeen inay kacdoon bulsho ku yimaado haddii ay soo qabtaan ama ay dhegta dhiigga u daraan. Muddo 60 sano ayay sidani ku jireen ilaa ay isbedeleen 6 wadaadiimeed kuwaas oo mid waliba diiday inuu isdhiibo. Sanadii 1929 Masiixiyiinta Benito Mussolini ayaa go'aan ku gaaray inuu aqoonsado qalcadan ay wadaadiimeedyadu ku jiraan dal madax bannaan, kaasi oo heshiis la galay wadaadadani isla markaana ay sidaa dal gaar ah ku noqotay xaruntani Vatican.